السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ سلام دمان أصحابتنا قالقة أصحابتي قالقة سيتين في عنتين رير دبي برير دال دمانتين سيليا ملا في عيا ملا نبض قبا إلهي إذن كيس ويدي رجينا أمل قصة دونك كجوكتان سو دواذا خيري فرحة سو دواذا اسكسو نقط كله وناكسن أغيار تشرفت له حوغاير أذيق قوت وكبحينا إن شاء الله دانك كلانو بحينا iyo dhoodhoojinta dhiirigelinta caafimaadka saaxiibtinimo wanaagsan soo dhawaada welcome haye dhinaca kale qolalka hoose cashir bixintaan gelaynaa insha allah cashir bixin qeyr qabto nafaqeyn wanaagsan farxad ku maaree danihiina qaaska inta memberka ka ee dabiib iyo dadaal soo dhawaada welcome programkeena waxaan gelaynaa sir haween lama sal gaaraa la dhahay soo dhawaada I love sir haween sababtoo ah wax badan oo dumarka u qaasa oo danaa ay samaystaan ama nafaqa ay cunaana laga bartaa si markaas ay u gaaraan xalkooda xal allah haayee soo dhawaada welcome barnaamijku waad ogtiin aan u malaynaa intiina memberka ka ah nafaqada laga bartaa dabcan dhoodhoojinaa loo baahan yahay dhiirigelinaa loo baahan yahay su-aalahan ka jawaaba waxyaabaha aan ka fahansanaa caafimaadka inta aan idinkala shaqeeyo mar walba waxaan idiin amaanaa wixii dhulka ilaahay ka soo baxay dabcan markaasaa xal la heli karaa xal allaha keeno soo dhawaada welcome insha allahu kheyr qeybtiisii ugu cusleedaan gelaynaa insha allah programka dhoodhoojin wanaagsan dhiirigelin wanaagsan saaxiibtinimo wanaagsan welcome wixii loo sabraa la helaa insha allah sabr iyo sidaa loo baahan yahay lagama maarmo inaad caafimaadkaaga fahantid ilaahay idankiisa danahaada aad u kacdo hadday ciladu jirtona goorigoor intay tahay iska xalisid haddayna ciladu jirin ilaahay ugu xamdi ilaahay ugu shukri bunka biyaha lagama badiyaa la dhahay soo dhawaada welcome waa hordhicii dhiirigelintii daryeelka inoo soo socda insha allah programkan waa fertility support nafaqooyinka oo dhan waa fertilityga wax saboodayo insha allah hortiinay soo gelaysaa qolalka doonta insha allah dhiirigelintana inta kala socda sababta dhiirigelinta waxay naga caawinaya inaad isku fiirsato haddaa dhaktar u baahatana aad tagto da-daada ku xisaabtantid danta aad leedahayna aad ku xisaabtantid insha allah dabcan maalin walbe gabar yar oo bikala bambiina garbafiina lama noqonayo da-du waa socotaa dantu way sira dardartaa waa celcelis watii soomaali tiri jir haween waa gacan ku hayn dantaan leenahay aada muhiim u ah soo dhawaada welcome micnaha inaa fahantiin way fiican tahay in maskaxda laga shaqaysiiyo way fiican tahay soo dhawaada okay dumarka waxaa la yiraahdaa xoogaa waxbaa iska dardaro maxaa keenay marka gabdho badanaa xoogaa dhaho sabab say ku dhacday dabcan haddii wax lagu fahansiiyo ood aqbasho fahmi kartidna halkay ka timaaday xataa maxay dumarka iyo raggu u kala cimri degdegaan qeybta quruxda iyo hanaanka maaha cimriga la dhimanayo qofku gaboobay iska dhimanaa maaha haddii cimrigaas kale laga fiiriyo dumarkaaba raagaba okay laakiin marka laga fiiriyo quruxda iyo hanaanka annagaa hor baaba'no sababtana waa caadada la daadiyo raggu ma caadoodaan dhiig kama daato macdan kama daadato yes shaqada gurigana waa lagu gaboobaaciyo raggu shaqo guri ma qabtaan bannaankay kasoo shaqeeyaan dabcan laakiin shaqo guri ma qabtaan shaqada guriga waa howlo badan tahay arrinka kale annaga waa fikrada badannahay wax badan isweydiinaa wax badanaa rabnaa maantoo dhan maskaxdeenna wax lay hagaajinay okay ilaaha noogu talagalay saas maasha allah marka soo dhawaada kheyri farxada soo dhawaada dhiirigelintii hoosaan galaynaa insha allah inta dhagaysato dabcan waa fahmi kartaa waxyaabaha aan ka hadlo dheefteeda dhanka kale laga bartaa intiina memberka ka intiina inta dhageysatane wax ka fahma just in case aad la yaabaneedeen sababaan saanu ahay sababaan saanu dareemaa sababu xaalkaygu saanu yahay just in case you normally ask yourself why okay gabdhaha qaar waxaa laga yaabaa inay ii reebaan message ay leeyihiin habar yaree mar walba waa xanuunsadaa sometimes xataa caajigayga ila yaaboo dhahaayo maxaa mar walba la bukoonaysa bil walba qof intaasoo dhiiga uu ka daato ama uu ka daadan jiray jucjuc waa imaanaa so jucjucyada aan dhakhtarka lala ballansanina waxaa kamid just haddii
aad qayirmato. Okay, niyadiyaa ka dareemay culaysyo, korkaagii waa qayirmay, daalaa kusoo qabanayo, neerfisaan tahay, just quruxdii iyo hanaanti kaasii dhumaysaa la yaaban tahay. da maanta la yiraahdo haa aqbal waa yeelaa tahay namatiid, marka ballan dhakhtarna ma aha. haddaad dheecaamaysid oo dhiigaysid oo korka dhan wada nabro ku yahay, yes waa raadi kartaa dhaqaatiirta maqaarka ku howle caafimaadkaaga waa loo raadi karaa. laakiin ka waran haddii aad qallalan tahay oo nadiif tahay laakiin quruxdii ay luntay, indhahay ka muuqataa, daamankay ka muuqataa, dhafoorkay ka muuqataa, macasha iyo garka hoostiisa, dhuunta, gacmaha, cududada, lugaha hoose, korkii dhan wuu soo qayirmay, adiga dhan qallayl iyo waxaa dareemaya gabow iyo waxaa dareemaysaa skin patches waxa la dhaho nabraha mamadoow iyo korkii dhan daal, caleenay ka dhamaatay camalaa tahay. wixii la waraabiyo waa nuuraaya. so sabab xataa qudaarahan iskugu roonaaday gabdhuu dhahaan, salarka waa cunaa, abakaadhaha cunaa, malabka waa cunaa, macmacaan waa ka cararay, wax dabiiciya cunaa, maxaan sameeyaa, saa isku dhaqdhaqaayo, waa daalay. like what is going on, what's happening, xagee leysitaa, mase saanaaba anigu ku noqdayba, qaabkayga saanuu noqday. I don't know, sometimes you need nafaqa zaa'ide oo damageka gudaha gaaray recovery ku sameeyo, because sometimes maaha external, waxaa u baahantaha waa internal, oo waxaa gudaha ka qaadanaysid saad kor uga soo nuurto. so think about it. marka adeega markaa idii soo geliyo nafaqooyinka halkaasay ka socdaan. tin ilaa ciribaa daryeel loo baahan yahay, waxaan suulayni male, timuhu waa suulaan, quruxda iyo maqaarka hanaanka waa suulaan, aragtida indhahaa suulo, tabarta iyo waxqabadkaa suulo, adiga dhanaad daali kartid. so halkaasay ka timid marka insha allah saasu fahma. soo dhawaada qaybta hoosoo cashir bixintaan gelaynaa. cashirada idiin soo galaayo wax kale maaha, waa nourishmentigaas, waa nafaqeyntaas waaye, jasaa uga soo kabato qaabka. okay, markaa muddo isqalbi bedeshid, ood isnafaqa bedeshid, ood isjimicsi bedeshid, oo waxyaabaha nafta u roon oo dhan aa ka agdhawaato, nuurkiyaa soo noqonayo. okay, laakiin time hala siiyo insha allah. okay, so su-aasha maxaa igu dhacay aniga dhana hal mar imri degdegee yaa yaqaano. sometimes gabdhahaas markii la wareysta qaar dilanaa ku dhacay, qaar caadadaa ku hakatay oo caado kama timaado, qaar waxaa laga yaabaa bakteeriyada caloosha in la qaaday, qaar waxaa laga yaabaa infectionka hoose ee candida iyo waxaa in la qaaday, yeast infection, qaar waxaa laga yaabaa dhiiglaan inay idin hayso, qaar waxaa laga yaabaa menopause inuu idin soo food saaray, qaarkiin PCOS in la qabay, polycystic ovarian syndrome, qaar in just moralku inuunan hagaagsanayn, qaar blood sugarka inuu soo kacay oo borderka loo taagan yahay, qaar extra weight inuu idin saaran yahay, qaarkeen waxaa laga yaabaa inay murugo jirto xagga qalbiga iyo arrimihiisa. so you never know. waxaa la yidhaha hawada badan ama hamiga badan xataa nafta wuu baabi'iyaa. like qofba qofka kale uu ka murugo badan yahay, wuu ka qaab daran yahay. qofaan waxba ka fikirayninoo cunuu caboo daashadoo nafaqo cunoo da-da u heelinayso gacanta isku haayo, dhalaalka waad aragteen sooma. marka lees dayacane waa la baaba'aso. just even thinking as a woman, thinkingkana laba waa, midna xanuunuu kugu haya kalya laaba, midna waa caadi, waa waxaa fahamsan tahay ood ka fikiraysid, kaasaa roon. ka kale waa israacine, saas maxaa leeyiri, saasaa rabaaye, beri meeshaasaa u socdaaye, biilkaasaa ii yaalo, qofkaa saasuu yiri, qofka saas culaabta badan u wado way ka muuqaneen korkiisa. so relax, isdeji. markii nala dhahana ma ogolino, waxaa leenahay dan adduunya haddaa relax noqdo waxbaa kala daadaadanayo. waana run, dantaada la soco waaye. amuurtana kheyr allah ka dhiga, allah nooga dhiga dhamaan. marka cashirada saasu fahme, dhoodhuujinta dheefta cunani la dhahaayo wax kale maaha, inaan kala daadaadanaa la diidaya, ama inaan baaba'no. marka nafaqadu waxay ka waxtahay in ay kusoo qurux celido ama kusoo tabar celido. marka video kasta iyo nafaqo kasta isbarbardhig, dhiirigelintiisa dhegayso, nafaqadiisa raadraac, dhiirigelintiisa dhegayso, nafaqadiisa raadraac insha allah. marka haddaa aragto videogan quruxdii hanaanka ka hadlaayo, nafaqo wanaagsanna aan kuu soo hoos dhigo, dhiirigelinteedana aan ku siiyo, dabcan waa haddii aad gadanayso ku dhaqaaq. waa saas, waa simple.
because qaarkiina ka cabanaysiin waa isbedelay waa qayirmay waa daalay waa baaba'ay neerfisaanahay waa tabarbeelay caado ma haayo jir haween maxay dhaheen soomaali hadalkii oo kooban waa gacan ku hayn marka sababta loo dhahay jir haween waa gacan ku hayn waa wadwadka loo baahan yahay waaye insha allahu kheyr wax kheyr lana allah keeno kuma sii dheeraanaya dhiirigelinta insha allah saas micnaha u fahma jir haween waa gacan ku hayn ee ilaahay idankiisa gacanta isku qabo aamiin yaa rabbi muraadkaaga oo kheyran allah kuu sahlo duca layskama reebee dhammaanteenba